waa tahay sida ujeedaan waxaan ku sugannahay banaanka hore ee talada Xawataako saad la socotaan halkan waxaa ka dhacay qarax dhawaan oo dad badan ay ku dhinteen Hon Cable TV-na waxay baahisay qaraxaasi iyo saameynta uu yeeshay halkan waxaa iga jiro dhinacayga bidix walaashay Salaado oo halkan qarax ka dhacay kaga geeriyoodeen saygeeda walaasheed gabar iyada ay dhashayna uu dhaawac uu soo gaaray sidoo kale halkan waxaa iga taagan Salaado hooyadeed gabdhahan halkan ay ku shaqaysan jireen oo shaax ay ku iibin jireen Hon Cable TV markii ay baahisay saameyntii qaraxaasi ka dhashay waxaa jiray gabdho Soomaaliyeed oo ku nool dalka Ingiriiska kuwaas oo dadaalo ay muujiyeen isku dayay in dhibaatada soo gaartay Salaado iyo ehelkan ay la qaybsadaan waxaa jiray lacag yar ay iska soo aruuriyeen taas oo gaarayso $131 oo lacagta Mareykanka ah lacagtan waxaa iska soo aruuriyay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Ingiriiska qaarkood waxaana dadaalkaas sameeyay gabar lagu magacaabo Maryan oo iyada ay sameysay dadaal adag isla markaana garatay in dhibka ay la qaybsato walaalaheed dhibka soo gaaray waxaan jeclahay marka lacagtan oo dollar ah inaa guddoonsiiyo Salaado oo loogu talagalay in iyada la gaarsiiyo waatan lacagtii loogu talagalay Salaado oo gaarayso $131 oo lacagta Mareykanka ah lacagtan waxaa iska soo aruuriyay qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Ingiriiska waxaan hormuud u ahaa walaashan Maryan oo ka damqatay dhibaatada qoyskan soo gaaray qofkan lacagta gudoomay waa Salaado oo qarax meesha aad taagannahay ka dhacay ku weysay saygeeda iyo walaasheed sidoo kalena dhaawac uu ka soo gaaray gabar iyada ay dhashay lacagtan waxaa idinku talagalay dad Soomaaliyeed oo idin kala qayb qaadanay dhibaatada idin soo gaartay ma sha Allah alxamdulillah bil caalami ilaa khayraasiyo walaashayna Maryan Cismaan Geedi waa uga mahad celinaynaa aniga iyo hooyaday oo farxeedadayda oo farxiyay Ibrahim Cali dhashay alxamdulillah walaalaheena Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha Maryan gudoomiye madax u tahay oo lacagahan soo gaarsiiyeen Ilaahay ajri xasan badan siiyo Ilaahay inta jeceliin ha siiyo jannada kamid tahay annagana lacagtu waana la soo gaarsiiyay wiilashan Hon Cable TV awaas maxamuud jilco alxamdu shukr bil caalamiin wuu soo gaarsiiyay khayr Ilaahay ha siiyo dhamaan gabdhaha iyo wiilashan oo gurmadabo meeshan waa la xiray waxna la ii sheegay inaan ku shaqaysanaynin meesha waa la xiray xagga amniga xaqiisa loo xiray alxamdulillah maadaama amniga xaqiisa loo xiray annaga waa ku qanacsana meesha hadii amni darra ka imaanaysa la dhahay saasa ugu qanaan magaaladana iska sii galayna haduu Ilaahay yiraahdo aan nolosheena meelan ka maareen uga sii raadsanayna wax shaqamaysa maya wali ma hel wax shaqa sidoo kale halka dhinacayga midig waxa taagan hooyo Faadumo oo ah hooyada dhashay gabadhii halkan ku geeriyootay hooyo waxay iga warantaa in dadkan wax idin soo gaarsiiyay idin damqad sida warka ma sha Allah khayr Allah siiyo muraadkooda la sahlo maxamed oo gabdhaheena waaye caruurteena dibadda noo jirta waaye marka khayr Allah siiyo muraadkooda la sahlo وأساساً كسلامة معنا. ماشان أكو شقة سنجرتين ولا حري. ولا حري ومعنا ما تبرأي ما تصو معنا. مركب وحواي الحمد لله شكر وحي إلهي نوكسل له لينا إن شاء الله تعالى. أويس محمود جلعو on Cable TV. مقدش.